dalal tiradoodu ay gaarto ilaa 9 wadan isugu jira kuwa Carabta iyo qaar kale oo Muslim ah ayna ugu horeeyaan Turkiga iyo Qatar ayaa lagu waramay inay door sare ka qaateen inaysan burburin dadaalada wada hadalka Mareykanka iyo Iiraan ee haatan ugu dambeyn loo ballansan yahay Jimcaha berri ah. xalay waxay u muuqatay in lagu kala tagay suurtagalnimada qabsoomida wada hadalkan kadib markii Iiraan sidaan horey u warinay ay dalbatay in shirka laga wareejiyo goobtii horey la isugu afkartay oo ahayd magaalada Istanbul ee dalka Turkiga isla markaana loo wareejiyo caasimadda Muscat ee Oman. codsiga ah in shirka laga wareejiyo goobtii horey loogu heshiiyay iyo dalabyo kale oo Iiraaniyiintu soo gudbiyeen kuwa oo qaybtood ahaa inaan wadamada dhexdhexaadintu goobjoog ka noqon karin madasha shirku waxa ay sababtay in Mareykanku si cad u diido ka qaybgalka shirkaba. diidmada Washingtonna waxaa xigay Iiraan oo iyaguna docdooda aan garowshiyo muujin. tani waxay mugdi xoogan gelisay suurtagalnimada uu ku qabsoomi karo isaragan noqonaya mid ahaan kuwii ugu muhiimsanaa ee labadan dhinac isugu yimaadaan taariikhda maadaama loo arko in lagu gaari karo isafgarad lagu qaboojiyo xiisadda labada wadan ee dagaalka qarka u saaran. ha yeeshee sida warbaahinta Mareykanku ku warantay madaxda wadamada 9 tiradooda lagu sheegay ayaa dadaal xoogan oo ay sameeyeen suurtageliyay in Mareykanku dib u aqbalo ka qaybgalka shirka taasoo sababtay in Iiraan docdeeda xaqiijiso in isaragu Jimcahan dhici doono isagoo wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Islaamiga ah jaalashooda Oman uga mahad celiyay martigelinta shirka. xogahoasi waxa ay sheegayaan inuu Mareykanku si adag uga biyo diidan yahay doonista Iiraan ee ah in wada hadalka lagu koobo kaliya qadiyadda nukliyeerka taasoo meesha ka saaraysa doonista Donald Trump ee ah in Tehran ka tanaasusho haysashada gantaalaha ridada dheer sidoo kalena joojiso sii wadida kaalmaynta kooxaha Xisbullah iyo Xuutiyiinta Yemen. mid kale oo mugdi gelisay kalsoonida Mareykanku ku qabo dhaqangalka heshiis uu Iiraan la galo hayaa in Netanyahu-ga Israa'iil oo shalay Mareykanku ugu tagay la tashi quseeya wada hadalkani uu u sheegay inaan Iiraan la aamini karin. xoguhu waxa ay warinayaan in Netanyahu u arko in xiisadda taagan ee Iiraan aysan lahayn xal aan dagaal ahayn. Washington waxa ay doonaysaa inay heshiis dhaba ka hesho labada qodob ee ku yimid doonista Israa'iil ee kala ah in meesha laga saaro madaafiicda ridada dheer ee Iiraan iyo joojinta kaalmada Jamhuuriyadda Islaamiga ah siiso xogaga hubeysan ee gobolka. balse waxa muuqata in Iiraan faham sarreeya ka haysato cidda doonista loogu danaynayo waana taas sababta ay labadan qodob miiska wada xaajoodka uga dheeraynayso. docda kale Mareykanku waxa uu wadaa hanjabaadiisa ah in wada hadalku dhalo heshiis meelgal ah haddii taasi dhici weydana ay haystaan dariiqyo kale kuwa oo dabcan ah dagaal ay la galaan Iiraan halka Iiraan docdeeda ay ku hanjabayso xitaa inay bedeshay istiraatiijiyadeedii difaaca ku dhisnayd oo haatan iyada lafahaanteedu weerar tahay natiijaduna ay noqon doonto wixii furimaha lagu kala qaado sida laga xigtay Generaal Cabdurraxiim hogaamiyaha taliska guud ee ciidamada Iiraan. ugu dambeyn Mareykanku waxa uu si xoogan uga walwalsan yahay in Iiraan leedahay qorshayaal kale oo dahsoon aysan daacad ka ahayn wada hadallada. waxa ay ku goodiyeen inay shirka ka doonayaan natiijo rasmi ah taasoo fasirkeedu yahay mid iyaga doonistooda u hiilinaysa halka Iiraan qabto in Mareykanku doonayo cududaar uu ku bilaabo howlgal ciidan oo ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga ah.